بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 485 عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه مر على بقل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، والأثر صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 25 bishii 12 dilxija sanata 1445 isla markaana waafaqsan kowdii bishii toddobaad sanadka 2024. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray almuntakhabu min saxiixi sunna nabawiya, qaybtii ku saabsanayd akhlaaqiyaadka iyo maaragtay qiibada, khaasatan qofka muslimka inuu muslimka kale cirdigiisa iyo wixiisa xaaraam ay ka tahay, allaa yaktaabahu fii haybatihi, maqnaanshihii uu ka maqan yahay inuusan xamanin xuquuqda lagu leeyahay wey. waxaanu soo qaadanay ilaa 2 xadiid oo maarata xanta ku saabsan baanu soo qaadanay, xadiidka Anas bin Malik iyo xadiidka Cabdullah bin Mas'uud. maanta waxaanu qaadanaynaa mid saddexaad insha allahu tacaala. mawduucaas berri baan soo gebagabaynaynaa oo xadiidka Abu Barzat al-Aslami ayaan ku soo gebagabaynaynaa. aharkan waxaa soo saaray waa mawquuf weeyaan, laakiin min xayثu alxukmi waa marfuuc wey, sababtoo tahay xukunkeeda ama waxyaabahan ka ratimahaya wax caqli lagu keeni kara may aho. marka wuxuuna aharkan waafaqahayaa nusuustii buu waafaqahayaa axaadiista kale iyo aayadda qur-aanka aba. imaam albukhaari baa kitaabkiisa adab almufrad ku soo saarahaya, abubakr bin abu shaybana kitaabkiisa almusanaf. idan aharkuna waa saxiix weeye. sheekh albani raxmatullaahi calayhi adab almufrad iyo saxiix targhiib wa tarhiib buu ku saxiixinaya. inta markaan ka gudbo, aharku wuxuu leeyahay camr bin caas radi allahu tacaala canhu ayaa mara wuxuu soo maray calaa baqlin, baqal buu soo maray, mayitin oo bakti ah. baqal waad garanaysaan, waa bahal dameeraha iyo fardaha u dhaxaysa wey. faras iyo dameer baa iska dhalay bay dhahaan, marka waa xayawaankaas weeye. ayuu soo maray, camr bin caas baa soo maray oo ciidan iyo dad wata oo maaragtay madax u ah. faqaala wuxuu ku yidhi marka camr bin caas libacdi asxaabihi, dadkii la socday qaar ka midu wuxuu ku yidhi: lian yaakula inuu cuno arajulu ninka lian yaakula arajulu ninku inuu cuno min haada baktigan, baqasha baktigeeda inuu cuno. nin baa la sheegay, dumarkuna waa lamid wey. xataa yamlaa ilaa uu ka buuxiyo batnahu, calooshiisa ilaa uu ka buuxiyo suu baktigan u cunayo, baa khayrun lahu ooga khayr badan min an yaakula inuu cuno laxma rajulin muslimin, qof muslima hilibkii inuu cuno waxaa ooga khayr badan baktigan inuu ka dhergo. suuro cajiiba weeye. yani camr bin caas radi allahu tacaala canhu wa ardaah yaa wuxuu leeyahay baktigan baqashan baktiday inuu axadkiin cuno oo uu ka dhergo, caloosha ka buuxiyaa ooga khayr badan bedelku qof xaman lahaa. idan xantu kabiiro weyn oo kabaa'irta waaweyn oo laga digay ah baa halkaa laga qaadanaya, isaga xadiidkaas iyo xadiidta kaleba. idan say saxaabadu u fahmeen u fiirso, heerkay ka gaadheen. yani saxaabadii dadkii asxaabtiisa ah buu ku boorin yaan u sheegay, u caddaynaya oo uu leeyahay baktigan aad arkaysaan ee baqashan baktiday, iyadoo marka horeba in la cuno ayn banaanayn markay nooleyd. in la cuno oo la qasho baqashu xaaraan bay ahayd. faraska wuu bannaan yahay in la cuno, laakiin baqasha iyo dameeruhu ma bannaano. iyadoo noloshiiba kolka horeba xaaraam ku ahayd, baktigeedana wuu kasii daran yahay. axadkiin inuu baktigan ka dhergo yaa oga khayr badan bedelka uu qof muslima hilibkiisa cuna, bimacnaa uu xaman lahaa wey. marka allahu akbar. marka xantu waa shay aad iyo aad u liidato wey. walaalaha qaarkood waxay su-aala iga soo weydiiyey oo shalay xadiidkan maraynayba wuxuu ahaa goob nabigu fadhiyaa nin ka kacay, danihiisa u kacay, nin kalaa markuu tegey wax ka sheegay. hadduu qofku fadhigii la fadhiyey uu qof ka tago meesha majliska oo laakiin intuu meesha ka kacay wanaag lagu sheego, maxan bay noqonaysaa? maya, xan ma noqonayso. xantu waa qofka wax uu maaragtay karaahaysanayo uusan jeclayn in lagu sheego wey, isagoo kaa maqan.
يعني ذكرك أخاك بما يكره إن ولالك وحو كراهيسان يتكشيك لكن هدو أسوه كامقان آد أمانت قفك وقف قيمة بدن وقف سداسة وقف نوعاس عبادة بدن سيدا بدن آد شيكتي تاوي في عن تايوي لكن هرتي سناتكو أمانتي بان الله أقلين عيالي waxaa laga yaabaa quruur iyo wax kale inay ku ridaan laga yaabaa maartay dhabarka ayaad ka jabisay mu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam nin kala hortiisa ku amaanay dhabarka ayaad ka jabisay buu marka qofka asagoo ka maqan daad amaantay way fiicanta laakiin xumaan inaad ku sheegtay baan la ogolayn almuhim asarkeena u soo noqonay xadiidka halkaas oo Amr bin Aas gaarsiiyay nusuustu ka qaadanaya xadiidaan soo mareynay ayada quraanka ahayd ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maytan fakaritumu marka waa ki aayadahay marka idan khuduurada ilaahay xantu waa arin xun weey akhlaaqna xun weey qof dadka xanto xan badan qofkaas waa qof mariid oo jiran weey marad weey xanuun maartay xantu waa marad iyo xanuun weey qofku inuu maartay baasha ka dhaqan dhigto oo dadka maanta oo dhan wax ka sheego waa arin aan saxayn weey asaga meena u daran tahay hadhow asaga u daran tahay وانا مارتا كبيرة من الكبائر واوين إلهنا سبحانه وتعالى وحن وديساننا بأسماء الحسنى وصفاته العلى إنه نقبت باديو أرنتا مرض منتشر ويانو إلا من رحم ربنا ويانا في أوساط المسلمين كبضا ويمانت كبضا أرنتاس مركا إلهي سبحانه وتعالى هنقا إلى ليو قفك مسلم كان ولا الكيسة مسلم كان دوسة واحد انترينين عرب كيسي أدن كيسا كايست ولا كذا مسلم كان دادا واحد كسو كورنينين carabkaadii adinkaada waa ha ka nabad galo oo ma aragtay yoosa carabkaadii adinkaada dib ha uga geysanin hal marba xadiidka lafdigiisa aan ku noqon akhrinaya الحديث 485 عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم الرجل المسلم رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف والأثر صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.